dalka Pakistan sida la socoteen dabashana qiimaha leh waxaa ka jiray arrin la yaab leh oo ka dhacday kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan uu iska daafacay wuxuu ugu yeeray mu'aamarad iyo duulaan ku soo qaaday haddaba dalka Pakistan wararka ka imaanaya waxay ruuxeen caalamka oo dhan waxayna soo jiiteen warbaahinta adduunka oo dhan gaar ahaan tan caalamka islaamka khudbadaha iyo hadallada markaasi ninka hadalyaaqaanka ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi aftahanka oo asagu isla markaana ka hadla arrimo waaweyn oo caalamka islaamka iyo sidoo kale shacabkiisa ayaa waxaa la sheegay in ay iska horimaado ku dhexmareen siyaasiyiinta wadankaasi cunaha kaga duubnaa muddada aadka u dheer oo ku jiro ra'iisul wasaaraha asagu muddada 5 jeer ku soo laba noqday Nawaz Sharif iyo kooxdiisa ayagu markaasi ku xiran dalalka shisheeye sida lagu sida warbaahinta dalka Pakistan sheegayaan ra'iisul wasaare Imran Khan ayaa waxa uu sheegay inuu ka badbaaday isla markaana ka hortagay qorshe aad u fudud arrintaasi waxa uu hiiriyay kadib markii guddoonka sare ee baarlamaanku ay ku kala jabeen mooshinkii isaga ka dhanka ahaa mooshinkaasi waxaa kala jabiyay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka kaasoo ku tilmaamay inuu moshinku uu salkiisa uu yahay wax dalka dibadda laga soo abaabulay sida daraadeedna ku tilmaamay inaysan reer Pakistan 70 iyo dhowr sanadood kadib ayagoo xora inaysan qaadan mar wax kale meel kale laga soo diray waxa uu markii arrintaasi ay baaba'day ama baalkaasi uu gubtay moshinku uu markiiba soo fadhiistay Imran Khan warbaahinta waxaana daawanayay malaayiin qof oo reer Pakistan sidoo kale malaayiin kale oo muslimiinta caalamka oo dhan ayaa ka daawanayay khudbadiisa halkaasi wuxuuna dalbaday madaxweyne Arif Alfi ka dalbaday in baarlamaanka la kala diro madaxweynaha ayaa saacado kadib markii dama ogolaaday arrinta wuxuuna ku dhawaaqay in baarlamaanka la kala diro hase yeeshee kooxihii markaas siyaasiyiinta ahaa iyo kuwii mucaaradka iyo kuwii dawladda iska casilay ee iyagu ku biiray mucaaradka dhamaantood sutida ayay u hayaan waxayna sheegayaan inay maxkamadda sare la aadi doonaan kiiska ku aadan in baarlamaanka madaxweynuhu inuu kala diray ay sharci ahayd inkastoo madaxweynuhu awoodaha uu leeyahay ka mid tahay inuu baarlamaanka kala diro haddana maanta gelinka dambe ayaa laga yaabaa in maxkamaddu ay dhageysato sare go'aanka ay ka gaadho haddaba dalka Pakistan Imran Khan waxa uu horey u sheegay hadal ka soo sibixday oo ahaa in mu'aamaradan uu Mareykanku soo abaabulay inkastoo hadalkaas uu dib ka saxay oo uu isla hadalka markii laga duubayay oo ay joogeen wariyaal uu xushay oo warbaahinta dunida caalamka islaamka iyo wadamo kale ka tirsan oo badan warbaahinta dalalka Turkiga ay kamid tahay dalalka Indonesia iyo sidoo kale wadamo kale oo caalamka taageera islaamka ay kamid yihiin ayuu wuxuu yiri waxa jira inaan runta sheegno oo ah waxana waa wax shisheeye soo amaamuday shisheeyuhu waxay doonayaan in wadankeenu uusan horey u socdo wadankuna weligii Allihii uu horumar la'aan ahaado oo wadanku uu sidan uu soo daba meeraysto xasilooni siyaasadeed wadanku ma uusan helin 40 sano ugu dambeysay ku dhawaad ilaa iyo sanadka 1988 wadanku ma helin dabcan wax xasilooni siyaasadeed wiikor ama toddobaadka hore aan aad arinta uga hadalay oo aan idin soo sheegay dhamaan madaxdii soo martay wadankaas iyo wixii dhibaato wadanka ka dhacay marka waxa uu yiri wadamada shisheeye mid ba marka hoos galiyo ku yiri waa wadamadee ka sheegay kartan kasii Mareykanka marka soo dana yiri maya uma jeedo Mareykanka inaan hadda magacaabo mar rabo inaan magacaabo ayuu yiri laakiin se wadamada shisheeye waa la iska garanaya si kastaba noqday waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka fiinkooda Ned Price ayaa waxa uu ku tilmaamay in hadalkaasi uu qadaf yahay wuxuu sheegay in ay isha ku hayaan lana socdaan waxyaalaha Pakistan ka soconaya laakiin se aysan ku dhaxmilmaynin arinta go'aanka masiiriga ee gudaha taala wuxuu intaas ku daray in ay mar walba xasiloonida dalkaasi amniga iyo sareynta sharciga ay iyaga hadeeyeen ay si taageeri doonaan haddaba dawladda hadeerto waxay noqotay caretaker dawladda caretakerka marka ama dawladda markaasi xilgaarsiinta sidee ayay ku noqotay horta xilgaarsiin arintaas waxaan magacaas horey waxa aad iyo loo isticmaalay xilligii dagaalada laga waday Muqdisho oo aan sax ahayn laakiin hadda doonayso dawlad caretaker ama xilgaarsiin waa tan oo kale ama sidoo kale ku timaada waa marka koobaad baarlamaanka dalka waa la kala diray marka baarlamaanka marka haday dawladdu parliamentary tahay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha baarlamaanku soo doorto sida inagoo kale maalinta baarlamaanka la kala diro ayay dawladdu noqotaa xilgaarsiin laakiin tan iyo inta baarlamaanka la kala dirayo dawladdu soo xilgaarsiin maaha maalinta hadeerto inaga baarlamaankeena hadeerto dhaarinta ku socota shahaadasiintu maalinta la dhaariyo ayay dawladdeenu xilgaarsiin noqonaysaa sida daraadeed haddaba balan fiirino sida Pakistan u shaqeyso Pakistan sidoo bay u shaqeynaysaa Pakistan waxay u shaqeynaysaa horta dawladdan waxay ahaanaysaa baarlamaanka dadka ugu badan ee xisbiyada baarlamaanka awoodda ku leh ayaa ka heshiinaya ra'iisul wasaaraha qofka loo dhiibay xilgaarsiinta waa hadii ra'iisul wasaaraha markaasi uu noqdo musharax Imran Khan marka wuxuu ku dhawaaqay in musharax yahay arinta inuu xilgaarsiin noqdana isaga dalbaday sababta uu dalbadayna waxa weeyaan
kolkii uu arkay taageerada lixaad kale ee shacabku ay u hayaan wuxuu doonayaa inuu doorasho galo kadibna dowlad aqlabiyad leh uu ku guuleysto oo xisbigiisa xubnaha baarlamaanka asagu uu leeyahay oo dowlad wadaaga bay hadda dowladiisii qoladii uu la wadaagayana ka baxday kadibna dowladiisii way weeqantay oo aqlabiyadii baarlamaanka ay weeqantay si uu u helo markaas ilaa 178 cod u baahan yahay wuxuu dalbaday doorasho xilligeeda laga soo horeysiyay wuxuuna ku sibdhiyay oo arkay baraha bulshada iyo dadka si u taageersan yihiin iyo sidoo kale isku soo baxyada magaalooyinka ilaa 1 milyan oo qof isku soo bax ka sameeyay magaalada Islamabad ee xarun dalkaasi iyo sidoo kale afkaarta nacaybka faragelinta sheeya oo dalka laf dhuun gashay ku noqotay haddaba waxa maadaama uu saas ku yahay musharax madaxweyne musharax markaas isagu yahay waxa khasab noqonaysa in loo dhiibo nin xilgaarsiinta laakiin se awood buu ku leeyahay maadaama xisbiga talada hayay isagu ahaa waxa sidoo kale la leh oo dooda xisbiga ku soo xigay ee codadka ugu badan helay sida daraadeed go'aan bay gaari doonaan kadibna saas leeyahay hadii lagu heshii waayo marka arinta waxa loo dhiibayaa oo dib loogu celinaya guddiga baarlamaanka la kala diray kooxdooda u qaabilsan arrimaha dawladda xilgaarsiinta kuwaas ayaa magacaabi doona haday kuwaas iyaguna ku heshii waayaan waxa loo gudbi doonaa maxkamadda sare hadii maxkamadda sare waxaan dhahayaa guddiga doorashooyinka qaranka ayaa magacaabi doona madaxweyne ama ra'iisul wasaare xilgaarsiin hadii markaana la waayo oo taasina ay suuragal noqon weydo waxaa magacaabaysa maxkamadda sare dalka marka Pakistan waxa uu ku jiraa markaasi hubin iyo loola qaar ka mid ah dadka falanqeeyaasha caalamka gaar ahaan kuwa caalam islaami aadka u yaqaan waxay leeyihiin hadii Pakistan ay marxaladan ka gudubto isla markaana ciidanka militariga aysan arrintaasi faragelin sidoo kalena ay tan noqoto mid markaasi tijaabo ra'iisul wasaarahan wuxuu ku soo bixi doonaa aqlabiyad aad u badan waxaana wadan ku socon doonaa jidka dhinaca dhallinyarada dhaqaalaha iyo tubta hagaagsan goorsi horeysay uu samaystay dalka Turkiga ayaa kamid ah dalalka iyaguna comment ka bixiyay ama ka hadlay xaaladda Pakistan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa khadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa walaalkii Shah Maxamuud Quraysh sida lagu qoray war qoraal soo baxay labada wasiir arrimaha dibadda waxa ay gabi ahaantoodba ay diideen faragelin kasta oo dalka lagu sameeyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda waxa uu ugu hambaliyay dawladda dalkaasi Pakistan iyo shacabkeeda iyo baarlamaankeedu sida ay isku ceshadeen isla markaana u diideen in tallaabooyin sharci darro ah dalka ay ka dhacaan iyo sidoo kale faragelin loo hoggaansamo wasiir Mevlut Cavusoglu waxa uu sheegay in Pakistan mar walba ay ku tashato Turkiga oo ay si weyn u taageeri doonaan walaalahood ayaa la sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in waxyaalaha lagu haysto ay kamid tahay inuusan taageerin ololaha reer galbeedka ee ka dhanka Ruushka sidoo kale inuusan taageerin arinta ku aadan ciidan laga dhigo ama xarun ciidan looga dhigo dalka Pakistan Mareykanka iyo inaysan waliba sidoo kale uusan taageerin qorshihii hanta xarubada ku dambeeyay ee loogu talagalay in Pakistan ay ku caabiso ururka Taliban ayadoo Pakistan lagu eedeynay mar walba in cilaaqad wanaagsan la lahayd Taliban taasoo iyaduna ay sheegay in isku wada urureen waxa taa kaaga sii daran hadii Ruushka iyo Hindiya istaageersan yihiin sidee ayay Pakistan meesha ugu jirtaa su'aashaasna waa su'aal aan runtii rabo inaan idinka jawaabo sidee ugu jirtaa waxa weeye maadaama Ruushku uu wadan quwada oo nuclear yahay in sidoo kalena uu xuduud ahaan uu uga dhow yahay dalalka kale oo dhan isku dhow yihiin Pakistan waa u fariidnimo in aysan inay ku khasabto Ruushku hadhow inuu dhaxdhaxaad ka noqdo labada dal oo cilaaqad wanaagsan Ruushka la samaysato oo tiraahdo anaguna maanta dhaxdhaxaad baan arrimaha ka noqonana anana Brito Hindiya kale wasmado doonaa hana soo dhaxgali waa arrin aad iyo aad u fiican laakiin quwadu inay isku ka dhex dilaan waa arrin halisa waa xal oo karaa farshaxan siyaasadeed weeyaan